xidiga qadka dhexe ee kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne ayaa barbareeyay gool caawintii Cesc Fabregas ee horyaalka Premier League kulankii ay 4-0 kaga badiyeen naadiga Fulham Sabtidii. Kooxda lagu naynaasay Citizens ayaa hoggaanka u qabatay horyaalka Premier League Ingiriiska iyagoo guul weyn ku soo gaaray garoonka Coventry Cottage, waxaana goolashaas u kala dhaliyay 2 gool oo u saxay Josko Gvardiol, mid uu raacsaday Phil Foden iyo rigoore uu dhaliyay Julian Alvarez. Inkastoo uusan wax gool ah dhalin, haddana De Bruyne ayaa awood u yeeshay inuu qaybtiisa guusha ka qaato, isagoo caawiye ka ahaa goolkii furitaanka ciyaarta oo uu dhaliyay Gvardiol daqiiqadii 13aad ee kulanka. Haddaba sidaas ayuu Kevin De Bruyne ku barbariyay rikoorkii gool caawinta Cesc Fabregas ee horyaalka Premier League. Caawintaas uu sameeyay kulankii Fulham ayaa ka dhigan in Kevin De Bruyne uu sameeyay caawintiisii 111aad ee horyaalka Premier League, isagoo sidaas ku barbareeyay Cesc Fabregas oo ahaa xidiga labaad ee ugu caawinta badan taariikhda horyaalka Premier League. Fabregas ayay ku qaadatay inuu 111 caawin kaga sameeyo horyaalka Premier League Ingiriiska 350 kulan oo uu ciyaaray, halka De Bruyne ay ku qaadatay inuu ku barbareeyay xidiga reer Spain kaliya 258 kulan oo uu saftay horyaalka Premier League. Inkastoo uu hadda kaalinta labaad kaga jiro xidigaha ugu caawinta badan taariikhda horyaalka Premier League, haddana Kevin De Bruyne ayaa weli u baahan inuu sameeyo 51 caawin oo kale si uu u barbareeyo xidiga ugu caawinta badan taariikhda horyaalka Premier League Ingiriiska ee Ryan Giggs. Halyeyga kooxda Manchester United ee Ryan Giggs oo sameeyay 162 caawin ayaa ku jira kaalinta koowaad ee xidigaha ugu gool caawinta badan taariikhda Premier League. Inkastoo uu dhaawac ku seegay kala bar xilli ciyaareedka, haddana xidiga reer Belgium ee Kevin De Bruyne ayaa weli awood u yeeshay inuu sameeyo 9 caawin oo horyaalka Premier League kala ciyaareedkan. 9kaas caawin ee uu sameeyay De Bruyne ayaa ka dhigan inay la mid tahay caawinta uu horyaalka Premier League kala ciyaareedkan ka sameeyay xidiga ay ka wada tirsan yihiin kooxda Manchester City ee Rodri, waxaana labadooduba ay kaliya 3 caawin ka dambeeyaan xidiga ugu caawinta badan xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League ee Ole Watkins, iyadoo weeraryahanka kooxda Aston Villa uu sameeyay 12 caawin fasal ciyaareedkan.